بسم الله الرحمن الرحيم نعاو أي تاريخ ذو تهاي سجاي لواتنك بشة أكتوبر أما بشة طبنات وحين وقدو بينا مقالة كسمايو متكمدة مادوين كعرمنا إن سي مسلسل أو دوبنو مادة أيضا وحين تهاي elements of transportation engineering تاسيو كم من نقوم دون تدور كورس أو دونينا كدوبنو علمي بلارن highway and transportation engineering oo ka sii mid cilmiga civil engineering weyn maadada ayada ayaynu bilaabaynaa haduu ilaahay idmo waxaan rajeynaynaa inaan ka duubno dhowr chapter taasi oo rajo ka qabnay inay wax ka tarto ardayda Soomaaliyeed ee daneynayso cilmiga la xiriiro transportation and highway engineering chapter ka koobaad waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa haduu idmo introduction to transportation engineering يعني waxaan ka bixin doonaa overview guud ama dulmar guud oo ku saabsan maadada aan duubayno chapter kaas ayaynu ka hadli doonaa darsigan iyo dhowr darsi ee soo socota insha Allah chapter objectives after completion of this chapter the learner will be able to يعني أهدافته ama waxyaabaha laga faa'iideeyo chapter ka koobaad ee introduction ayaynu fiirin doonaa ilaa iyo 5 qodob ayaanu ugu talagalay inaan wax ka dhaho taasi ay sii jiri doonaan pointiya kale ama qodobo kale oo yani ka yar yar kuwan oo aan sheegi doono laakiin shantan baa ugu muhiimsan si guud ahaan definition of transportation engineering ayaa number 1 aan ka dhigi doonaa in aan qeexno what is transportation engineering iyo faa'iidada ay leedahay waxyaabahaas ayaanu ku tilmaami doonaa qodobka labaad transportation systems ayaynu fiirin doonaa si kooban waxaan kaloo fiirin doonaa major disciplines of transportation yani filiyada ama waxa weeye partiska ay u sii qaybsamayso ama disciplineska ay u qaybsamayso transportation engineering ayaynu fiirin doonaa waxaan fiirin doonaa advantages of road transportation yani roadka waxa mid ugu weyn dhammaan transportation modes ama waxyaabaha lagu safro oo hawada iyo badda iyo dhulka marka roadku waa mid ugu muhiimsan saas ayaan soo qaadanay si khaas ah maadadana inta badan wuxuu ku saabsanaan doontaa road transportation understanding of road development process waxaanu fiirin doonaa ama aan fahmi doonaa jabta markuu noo dhamaado kadib yani processka loo maro road development يعني wada in la dhiso process nooca loo maro anagoo fiirin doono documentationka iyo waxyaabaha la saga baahan yahay company-ga iyo consultant-ga waxaan kaloo fiirin doonaa waqti intee lag bay qaadataa in wada la dhiso anagoo sample sameyn doono insha Allah marka shantaas qodob ayaan ka fargareyn doonaa inta ku wada jirno chapter-kan haddaba qodobka koobaad aan soo gudbo oo ah definition of transportation engineering what is transportation engineering muxuu yahay Transportation engineering is application of technology and scientific principles, the planning, functional design, operation, and management of facilities for any mode of transportation in order to provide the safe, rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods يعني definition kan book ayaan ka soo qoray marka waxa weeye waa application of technology waa application ayadoo la isticmaalayo technology and sidoo kale scientific principles iyo waxyaabo cilmi oo science ku saabsan taas oo lagu jaangooynayo ama la sameynayo planning functional design ayadoo la qorsheynayo design functional operation in يعني la operate gareeyo oo laga shaqeysiyo in la maamulo and management of facilities in la maamulo facilities ke modes of transportation ki wadooyinka in la maamulo of any mode of transportation in order to provide si يعني oga soo baxdo yani markii la design gareeyo markii la qorsheeyo la design gareeyo operation keedii la sameeyo la maamulo in order to provide si loo helo safe rapid comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods. حالة يعني وعيني وضع أي نقطة متسيفة متفاستة رابط
mid comfortable oo raaxa oo dhib iyo jagjag aan lagala kulmaynin, convenient ku haboon, economically yani dhaqaale ahaan fiican, environmentally compatible taasoo ku haboon movement of people and goods. marka taas baan insha Allah taala transportation waka definition kaas ay leedahay. waa laga yaabaa in definition kale aad aragto, marka taa ayaa aniga la qurxanaatay inaan ku qeexo. qodobka noo xiga, the importance of transportation in the development of the country is multi-dimensional. maanta wadan dhaqaalihiisa waxaa lagu qiyaasaa yani waxaa weeye wuxuu noqday يعني مهمة أولية the importance of transportation in development of country. يعني مركي لو فيديو وضن كي ورمرت كيس is multi-dimensional يعني وأرن آد وين يعني وحيابها ما أنت لو قياس سبب وضن ماذا نقالوا هذا وحاوي سيدبو وضن كودياري transportation modes كيس. you see سنتين سأقول لكم a country's economic status يعني country أما وضن كا dhaqaalihiisa markaas muuqda statuska dependence wuxuu ku xiran yahay upon dependence upon wuxuu ku xiran yahay how well serviced the country is different modes. A country's economic status wadanka dhaqaalihiisa dhaqaalaha marka uu haysto ee wadanka dependence upon wuxuu ku xiran yahay how well serviced sideebuu wadanka uu serve gareeyay uu u diyaariyay. The countries it is by different modes of transport. يعني wadanka dhaqaalihiisa waxay ku xiran tahay sideeba wadooyinkiisu diyaariyeen. يعني waxa ka wada hadii wadanku wadooyinkiisa iyo maxaa la jiray modes of transportation kiisa uu si fiican u diyaariyo dhaqaalihiisa kor buu jiraa. hadii wadooyinkiisa ay xun yihiin ama transportation modes kiisa ama cirka ama biyaha ama dhulka ay xun yihiin dhaqaalihiisa waa xun yahay waay. okay marka why transport loo sameeyaa why horto yani waa wax iska nature ah oo waxa weey dadku waxay jecel yihiin in meel ka tagaan oo meel kale ay tagaan. xayawaanadku waa aragtay meel bay ka guuraan meel kale ay tagaan, libaaxu waxa weey waaris doonta, shimbiruhu waa foofaan. yani sidoo kale all human being interact over distance and time. yani dadku way safraan meel bay ka baxaan oo meel kale tagaan oo maxay raadinayaan for food, for shelter, هو بيرادنيان work, business, recreation and security انت بو بحام. اوكي مهمة كلا هذا حوي all agricultural and industrial raw materials. يعني درجي يعني بيرشدي يعني بيره برودكتي كصبحه iyo industrial raw material iyo raw material kala soo saari lahaa iyo markii la soo saaro products markii wixii la warshadeeyo oo warshadaha badan oo ay ka baxsan yihiin magaalooyinka equipments are needed to be transported from one place to another place. marka waxay u baahan tahay in meel laga safriyo oo meel kale la geeyo. tusaale haddii beer ay ku soo goodo oo dalag fiican ku soo goo hadii waxaad u baahan tahay inaad soo safriso magaalada keento fahmaysaa. warshaduhu badan way ka baxsan yihiin magaalada marka waxay u baahan yihiin wixii ay soo saaraan productigi in maxaa la jiray la soo safriyo. marka hadii ay wanaagsanayn wadooyinka la isticmaali lahaa dhaqaalaha hoos buu dhacayaa. hadaa hore usii socdo yani inta waxa uu soo baxay definitionkii muhiimadda ay leedahay transportation system ayaynu eegaynaa. In the last couple of decades, transportation systems analysis has emerged as a recognized profession. يعني سنadihii la soo dhaafayay ama qarniyadii la soo dhaafayay ba transportation system analysis wuxuu noqday recognized profession. يعني xirfad la aqoonsan yahay oo muhiim ah. يعني in la sameeyo transportation systems kala dejiyo waa xirfad aad iyo aad muhiim u ah ayay noqotay sanadii la soo dhaafayay. More and more government organizations, universities, researchers, consultancies and private industrial groups around the world are becoming truly multimodal in their orientation and are opting a systematic approach to transportation problems. يعني waxaa laga wadaa in badan oo يعني government organizations hay'adaha dawliga ah
jaamacadaha cilmi baarisyada consultancyada kambaniyada iyo private industrial groupska oo adduunka dhanka jiraya waxay noqdeen truly multimodal yani waxay noqdeen kuwa aad ugu mashquulo aad u diyaariyo yani inay ogaadaan la raadiyo la approach gareeyo transportation problems dhibaatooyinka ka taagan transportation yani muhiimadda ay leedahay ayuu ku sheegayaa okay haddii si hore soo socdo background achieving wall and field mark the strong background and achieving wall يعني waxa ka hadlaynaa transportation systems يعني systemska loo diyaariyo transportation the strong interrelationship and the intersection between transportation and the rest of the society especially in rapidly changing world is significant to a transportation planner among them 4 years afirna marka wuxuu yani the strong relationship يعني علاقة adag ama علاقة weyn ee ka dhaxayso transportation and the rest of society yani isgaarsiinta ama socdaalka iyo bulshada inteeda ka soo hartay especially khaas ahaan markaan sii fiirno rapidly changing world yani adduunkan sida degdega ama fastga isku bedelayo yani is significant waxay significant importance yani wax aad muhiim u ah ay u noqotay to a transportation planner yani engineerka plan gareeyo maadaama adduunkan maxaa la jiray technology uu kor u socdo marka relationship ka dhaxeeyo transportation modeska iyo dadka yani adduunkan isbedelaya ee waxa weeye technology-gan horumarka uu socdo yani waxay muhiim u noqotay inuu diyaariyo transportation plannerka okay among them 4 critical dimensions waxa markaan sheegi doonaa 4 arrimood oo muhiim ah of changes in transportation system taasoo bedeshay transportation system can be identified which forms a background develop a right perspective yani 4 arrimood ayaan ka fiirin doonaa yani si background ahaan ay u bedeshay transportation systemka okay qodob koobaad change in demand afeerno change in demand waxa laga wadaa yani isbedelka ku imaanaya isticmaalka transportation haday tahay wado iyo diyaarad iyo maraakiba when the population okay income and land use pattern changes the pattern of demand changes waxa laga wadaa hadii dadku ay ziyaadaan mesela magaalada Kismaayo waxa ku noolaa 500 kun qof hadii dadkaas ay ziyaadaan dadka income-koodan uu ziyaado isticmaalka dhulkana uu ziyaado xaqiiqa marka demand-ga inuu ziyaadiyo oo isticmaalka wadada ay ziyaadayso both in the amount of spatial distribution of the demand marka waxa laga wadaa hadii dadku ay badanayaan yani مثلا baabuur 500 kun qof hadii Kismaayo ku nool sanadkan 500 kun ay 300 gawaari isticmaali jirtay bal ka waran 2 years later ma kan noqon kartaa 800 kun qof ay ku nool demand-ga marka badanayo isticmaalka gawaarida okay waxa kale oo muhiim ah change in technology isbedelka technology-ga as an example earlier tusaalahan waagi hore only two alternative yani waxa la isticmaali jiray bus transit iyo rail transit were considered for urban transportation يعني magaalooyinka waxa loo isticmaali jiray labadan bas yani bus transit iyo rail transit but now new systems yani waxa imaaday marka systemyo cusub oo LRT mid la yiraahdo MRTS la yiraahdo iyo wixii lamid ah yani waxa soo baxay treeno iyo basas ku socdo electronic ila China hada ayaamaha hadda soo saaray wax loo yaqaan bullet train يعني ترينو سيدي بولتكي حبدي عم u dhacayo ده hor isocdo waxa kale muhiim ah change in operational habka yani operational policy habka loo fulinayo yani policy ama shuruucda ka dhigsaneed variety of policy options designed to improve the efficient such as incentive for carpooling bus fare road tolls
يعني waxyaabaha isbedelay operational policy waxa kamid yani ma jirin waxyaabaha carpooling waxa la yiraahdaa saddexdan qodob markuu ugu muhiimsan waxyaabaha isbedelay waxa kamid ah yani carpooling baa la sameeyaa bus fare baa la sameeyaa road tolls baa la sameeyaa carpooling waxa laga wadaa in baabuurta raaxada dadka isticmaalo saddex qof hadii min hal baabuur raaxa ay leeyihiin yani inay isku darsadaan oo hal baabuur isticmaalaan si ay uga badbaadaan lacagaha yani ka bixila shidaalka ka bixila ay kaga badbaadaan bus fare waxa weeye markii baabuur la wada kireysanayo oo hal baabuur la isla wada raacayo ama sida caadiga ah baabuurta loo raacaba intii qof walba hal baabuur uu jilib u raaci lahaa in hal bas weyn la raaco tan ugu dambaysan waxa laga wadaa road tolls waxa weeye wadooyin waxa jiro lacag lagu galo يعني وحاوي و operational policy ودين وحاجره حالجيا إن شركة هرمود وضع دستي لو 2 كيلومتر لون بهاي العقد السعودي مركو حال سمينا وحلو يقانو road tolls وحاكل جرو change in values of the public يعني dadka waxa laga yaabaa in markii hore isticmaal jireen gawaarida dadka lacagta la bas isticmaal jireen laakiin hadda way isbedeshay oo waxa isticmaal kara ninka lacagta leh ninka faqiirka wuxuu isticmaali karaa BL kan yar baawur wadi karaa asaas laga wadaa marka yani dadka values isbedel ku yimid earlier all beneficiaries of the system was manipulative yani dad kooban oo la yaqaanay considered as users waxaan loo yaqaanay users bas now had not one system can be beneficial to all يعني هل system بس ما أنت لقى فائدته أو وحال سميه قف والبا كي فقير كان بيل بوهريا أي باور شبان كي غني هاكي category بالك رياش instead of one must identify the target groups يعني وحال لسميه مركز target groups يعني rich كقنية V8 بيقاعد كران باور أو إني قاعد كران تتكدح باور اسكدح قاعد كران poor باور اسكرقيسي قاعد كران يان كي يربا وحوضن كرو وقتي أفضل قضب أيام كسوكو بيا درسيجا أنت 10 كان 10 لم يدعى لكم بدانه سيداسيو نبتقلي والسلام عليكم